السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت رنتي وحيتها فرحت إن النسور استاجو وأنا نعركه وأتهين dadkii runtii u soo halgamay una soo dhintay una soo dhaawacmay difaaca dalkiina iyo dadkiina oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah oo Soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobolada dhexe isku xira ilaa Puntland isku xira waxaad u noqoteen derbi waxaad u daadiseen dhiiggiina waxaad u hurteen naftiina runtii waxay tahay arrintaasi arrin ladinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan ku abaalmarino bacdama aad u soo dagaasheen oo aad u soo dhimateen aanad ka difaacdeen qolooyinkaas horarka ah inay dadkeennii iyo diinteenna ay beddelaan waad ku mahadsan tihiin abaalna waa idinkaga haynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdana waxaan abaalgud idinkaga dhigaynaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba ka qayb noqoshada ama ka qayb qaadashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay inaad heshaan daryeelkii aad xaq u lahaydeen haddee noqoto garaado iyo dallacsiin haddee noqoto mushaharaad haddee noqoto agab haddee noqoto qalab wax alla wixii ciidan u baahan yahay insha allah inaad heshaan kuwii dhaawacmay oo ku curyaamay inaan daryeelno oo aan ka warqabno bacdamaa ay u curyaameen xubnahooda muhiimkaana ay u lumiyeen difaaca qarankooda iyo dadkooda ay u lumiyeen agoontii inaan ka warqabno oo aan u sameeyno kulajooyin aan ku xarinno oo aan wax ku barno yaatiintii ay helaan xuquuqda iyaguna ay lahaayeen ay ku lahaayeen dowladooda ay ku lahaayeen hadduu eebba yidhaahdo oo aan u sameeyno xerooyin aan u sameeyno idinkana siduu sheegay Sheekh Shaakir aad noqotaan bacdama aad tihiin ciidan nidaamsan oo disbiliin iyo anshax wanaagsan leh ku dagaalaya ama u dhimanaya caqiido in lidinku daydo oo aan balwad lahayn oo muhiim ah in lidinku daydo oo ciidankeennu uu noqdo ciidan hufan oo waa fiican yihiin oo waa geesiyiin caqiido leh caqiidana waa leeyihiin akhlaaq wanaagsan hufan kana fog wax alla wixii muqaadaraad ka fog maxaa yeelay ciidanku hadduu muqaadaraad leeyahay iskama celin kara cadowga waa xaqiiqa maxaa yeelay waqtigii ahayd inuu waardiyaha qabto waqtigii ahayd inuu dagaalamo waxaa laga yaabaa inuu jiifo maxaa yeelay korkiisa waxaa ku jira muqaadaraad yaa ku jira marka inaan badino ciidanka runtii aaminsan hadday ciidan yihiin inay maxaan ku rahdaa mas-uul ka yihiin inay astaan ka yihiin dadkooda iyo shacabkooda astaan u yihiin marka waa idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan aad nagu soo dhaweyseen annaguna waxaan naga ballana insha allah hadduu yidhaahdo inaad noqotaan ciidankii qaranka oo siduu sheegay jenaraal gorod aan magac idiin samayno allahu akbar allahu akbar allahu akbar mudane shaakir aad iyo aad yaan kaaga mahad celinayaa runtii hawsha wanaagsan aad soo qabateen iyo sidaad iskaga xil saarteen inaad difaacdaan deegaankiina aad ka difaacdaan qolooyinka khawaarijta ah idinkoo weliba laga yaabo inaydan wax innaba hayra taakulayn idinka helin dowladda dhexe idinka helin taasaa waxay tahay ammaan taasaa waxay tahay ammaan taasaa waxay tahay wax laydinku abaalmariyo marka hadda bacdamaa laysku darsoomay oo galmudug iyo ahlu sunna wa jamiica goboladii dhexe ay isku darsoomeen ay noqdeen hal dowlad goboleed ay noqdeen waxaan rajaynaynaa inaan awooddeennii xoojinno inaan tababarno ciidamo kale xeradan burbursanna aan dib u dhisno qalabkii ciidan u baahnaan aan keenno insha allah aan ka xoreyno inta hartay shabaabka gobolkan aan ka xoreyno ay ka mid tahay ceelbuur xaradheere ceeldheer ay ka mid tahay inaan ka xoreyno insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan
waxa la rabo inay xoreeyaanna waa idinka iyo ciidamada kale oo jooga gobolka oo isku biiray oo nidaam fiican oo runtii lagu yaqaanay ciidankeenii soo celiyey oo halkaasi ay noo noqoto kaliya ma aha yaanan oran galmudug yaanan oran meel kasta aan ka gaari karno aan ka xoreyno khawaarijta maxaa yeelay haddii lagu joogsado halkan khasbiyan waxaa ah inay halkan imaanayaan marka inaan dalkao dhan ka wada xoreyno kuwa raba marka inay hubka dhigaan wiilasheenii weeye aan ilaahay ugu duceyno inuu soo hadeeyo ay soo dhiibaan hubkana dhigaan si ay qayb uga noqdaan horumarka iyo dhismaha dalkooda maxaa yeelay wiilasheenii weeye dhowr jeerna waxaan siinay cafis yaan siinay waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka faa'iidaystaan caqiidada saxa ah oo ahlu sunna ay qaataan oo waxay aaminsan yihiin oo dibadda looga keenay oo aan diin islaan ahayn ilaan diin islaan ma ogola dad in la laayo diin islaan ma ogola in hanti la burburiyo diin islaan ma ogola waxa ay samaynayaan marka inaan barno diinta saxa ahaa oo caqiidada noo ahayd oo aan ku dhalannay oo dhaqankana noo ahayd waa mahadsantihiin waxaa noo balana soo maaha inaad dalkiina hore u wadaan oo difaacdaan soo maaha diintiina inaad difaacdaan soo maaha inaad ciidankiina kusoo birtaan soo maaha xuquuqdii aad laheedeen inaad heshaan in sha allah taasaa noo ballan annagana qaybteenna waa qaadanay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu